Asalaamu calaykum akhyaarta qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Samawada soo dhawaada. Waa mar kale iyo muuqaal kale oo cusub. Muuqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay sheeko faneed gaaban oo aad u xiiso badan misna ka turjumaysa waaqiciga nolosheena. Balse inteena si toos u bilaabin muuqaalkeena maanta, fadlan like saar muuqaalka lana wadaaga saaxiibadaada wixii faalooyinkaaga ahna nagula wadaag qaybta commentiga. waa gidaar aad u dheer dherer ahaan gidaarkaasi wuxuu gaarayaa 123 mitir. qof waliba oo ku nool magaalada waxa kaliya uu gidaarkani ka ogyahay waa in gidaarkan uu yahay gidaar aad u weyn dherer ahaan iyo balac ahaanba. gidaarkani haddii aan faalo yar kaa siiyo, waxaa la dhisay 7 qarni ka hor, lamana garanayo cidda xaqiiqada ee dhistay. inkastoo gidaarkani weyn yahay misna dheer yahay, haddana ma ahan gidaar adag ee waa uu jilicsan yahay. sidoo kalena gidaarkani waxaa ku yaala hal albaab, albaabkaasina qaybtiisa kor wuxuu ku leeyahay duleel yar. haddii qof ku dhiirado uuna fiiriyo uu arki karo wax ka gadaalaya gidaarkaas. laakiin dadka magaalada degan waxay gidaarkani ka aaminsan yihiin haddii gidaarka la dumiyo ama la furo albaabka ku yaala in ay noloshooda isbedelayso. habar weliba iyo oday welibaana caruurtooda waxay uga sheekayn jireen in haddii ay derbigan dumiyaan ay noloshoodana dumi doonto. waxay ayba dadkaasi ku noolaadaan ilaalinta gidaarkaasi. waxaa maalin maalmaha kamid a magaaladaasi ku dhalatay gabartaasina waxaa loo bixiyey Shaymaa. ilmaha asaageeda ah ee magaalada ku nool way ka gedisaneyd. Shaymaa markii ay 10 jirsatay, waxay waalidiinteeda iyo dadka kale isku deegaanka ahaayeen weydiisay su'aalo aad u badan oo aan xad lahayn. su'aalahaasina waxay ku saabsanaayeen gidaarka magaalada. waalidiinta Shaymaa oo gabartooda hadal ku qancin waayeen ayaa waxay maalin maalmaha kamid a u keeneen 22 buug oo lagu qoray warbixino ku saabsan gidaarkan. Shaymaa waxay ku qaadatay inay si dhammaystiran u akhriso 22kii buug 270 maalmood. markii ay dhammaystirna akhrinta buugaagta, waxay ka weysaal jawaab oo kamid ay ku qanacdo. Shaymaa habeenada kamid ah intay si qarsoodi u soo baxday ayay timiday qaybka gidaarka uu albaabka kaga yiilay. kadibna intay geed kurtin ahaa oo hore u soo diyaarsatay soo qabsatay, kadibna ku dul istaagtay, waxayna eegtay duleelkii yaraa ee ku yiilay albaabka. duleelkaasina qof iyada ka horeeyay oo fiiriyay ma uusan jirin. laakiin waxay Shaymaa habeenkaasi soo aragtay waxay aad uga cabsatay. haddaba muxuu ah waxay habeenkaasi Shaymaa soo aragtay? habeenkaasi waxay duleelkii yaraa Shaymaa ku soo aragtay il kale soo eegaysa duleelkii. markii ay qaylisana waxay kaloo maqashay qaylo kale. 3 maalmood kadibna dhacdadaasina waxay Shaymaa walaalkeed ka codsatay inuu raaco gidaarka, balse wuu ku gacan seeray wuxuuna dhahay in aan ku raacaba iska daaya, xitaa haddii aan maqlo inaad soo agmartay gidaarka kow ayaan kaa siinayaa. Shaymaa oo canaanta walaalkeed dhiirigelin kasii qaaday ayaa waxay habeenkale ugu soo baxday si qarsoodiga guriga. balse isla markii ay guriga kasoo baxday waxay maqashay cod nimeed oo ugu yeeraya magaceeda. markii ay soo jeesatayna waxay aragtay in qofka la hadlayo uu yahay aabaheed. habeenkaasina Shaymaa si aad u daran ayaa loo garaacayay ilaa ay deriska kusoo baxeen qaylidooda. markii odayga dhalay gabartan laga wareystay sababta uu garaacaya gabartiisa, wuxuu u sheegay inay u socotay dhanka gidaarka ayna damacsaneed inay fiiriso duleelka ku yaala gidaarka. markii ay dadka maqleen hadalkaasi waxay go'aan ku gaareen inay iscabadaba dilaan. balse Shaymaa habeenkaasi waxay ku badbaatay walaalkeed dartii. walaalkeed oo kusoo kacay qaylada banaanka ka yaraysa ayaa arkay misna maqnay walaashiisa in la dili rabo. habeenkaasina wuxuu Shaymaa walaalkeeda dhahay qofkii isku dayaba iska dhaafay, xitaa haddii uu qof ku fikiro inuu dilo walaashay qoortiisa ayaan hordhigayaa. maadaama Shaymaa walaalkeedna uu ahaa dadka nuuca aan kaftamin, kaftankooduna uu yahay dhabtooduna ay tahay dhab, dadku waxay ku wada heshiiyeen in maxkamadda la saaro. habeenkaasina sidaas ayaa lagu kala hoyday. maalintii xigtayna cidna kumaysan dhiiran in ay Shaymaa maxkamadeyso. dadka magaalada oo dhammina waxay markani ku wada heshiiyeen in aysan la hadlin Shaymaa, xitaa waalidiinteeda lamaysan hadli jirin maalintaasi wixii ka dambeeyey. Shaymaa qofka kaliya ee la hadli jiray wuxuu ahaa walaalkeeda, maadaama Shaymaa walaalkeedana uu inta badan maqnaa jiray. Shaymaa waxay waqtigeeda ugu badan ku qaadan jirtay wax akhris iyo fikir, inta badanna waxay ka fikiri jirtay gidaarka weyn ee magaalada ku yaala. maalin iyadoo sida caadada u aheedba ka fikiraysa gidaarka magaalada ku yaala, ayay waxay go'aan ku gaartay inay soo eegto duleelka yar ee ku yaala gidaarka. isla maalintaas habeenkooda oo gudcur aad u daran jirayna waxay Shaymaa usoo baxday si qarsoodi ah iyadoona timiday gidaarkii. markii ay duleelkii yaraana isha saartay, waxay ku aragtay wax ka gedisan wixii ay aragtay habeenkii koowaad ay fiirinaysay duleelkii yaraa. caawa Shaymaa waxay duleelka ku aragtay webi, beero iyo xayawaano kale, balse waxay hal mar soo booday kadib markii ay aragtay il kale oo soo eegaysa duleelkii yaraa. habeenkaasi iyo 2 habeen oo kalena iyadoo ka cabsanaysa ishii ay soo aragtay, balse 19 habeen kadib waxay mar kale u soo baxday si qarsoodiya. kadibna waxay timiday gidaarkii, laakiin cawada waa ay ka bedelan tahay habeenadii kale ay Shaymaa imaanaysay gidaarka. cawada wuxuu go'aankeeda yahay inay ka sargaarto waxa ay tahay isha mar weliba soo eegta. fikir dheer ay gidaarka ku dul
fikiraysa kadibna waxay ku dul istaagtay kurtankii yaraa waxayna usha saartay dulalkii, balse cawada layaabkii hore ka gedisan ayaa aragtay iyo wax ay la fajacdo. Habeenkaasina waxay Shayma aragtay iftiin iyo dad kooxo u sheekaysanaya. Shayma midda kaliya habeenkaasi la yaabaneed ayaa waxay ahayd iftiinka sidii maalintii oo kale u ifaya. Shayma iyadoo marba dhinac u jeedinaysa isheeda ayaa hal mar gadaal loo jiitay, dhulka ayaana lagu dhuftay. Markii ay eegtayna qofka sidan ku sameynaya waxay ogaatay inuu yahay walaalkeed. Shayma iyadoo naxsan ayay ku booday walaalkeed iyadoona habsiisay kadibna ku dul oysay. Daqiiqado yar kadibna Shayma waxay walaalkeeda ku qanacsan inuu fiiriyo dulalka ku yaala gidaarka. Asigana markii uu eegay wuu rumaysan waayay wuxuu arkay dad habeenkii u nool sidii maalintii oo kale. Shayma iyo walaalkeed habeenkaasi ma aysan hurdin, waxayna ka fikirayeen waxay ku arkeen dulalkii ku yaala gidaarka. Wada sheekaysi saacado dheer qaatay kadibna waxay Shayma iyo walaalkeed go'aan ku wada gaareen in ay maalin ay qoraxda soo jeeday ay soo fiiriyaan dulalka si ay u arkaan sida ay maalintii noqonayaan dadka ka dambeeya gidaarka. Subaxii markii la gaarayna ayna qoraxda soo muuqatay, dadkana soo wada kaceen. Waxay Shayma iyo walaalkeed fiiriyeen dulalkii ku yaala gidaarka, waxayna arkeen wax kale oo ka gedisan waxay arki jireen. Iyagoona hadal ku cabiraya waxay arkeen ayayna waxay dhaheen waxaynu aragnay dhul si farshaxanaysan loo fidiyay iyo walax sida fardaha u dheereeya. Sidoo kalena waxaan aragnay dad socda iyo dhismayaal cajiiba. Markii ay maqleen dadka magaalada hadalkaasi waxay u qaybsameen laba qaybood, qayb rumaysata iyo qayb beenisa hadalka Shayma iyo walaalkeed ay sheegeen. Qaybta rumaysata hadalka Shayma iyo walaalkeed waxay dhaheen hala dumiye gidaarkan. Qaybta aan rumaysan hadalka Shayma iyo walaalkeed lama duminayo gidaarkan, waayo gidaarkan waxaa inagala dardaarmay in aan la dumin awoowayaasheen. Dood dheer kadibna waxaa dadkii kasoo dhex hadashay Shayma iyadoona dhahday gidaarka la dumin maayo, sidiisana lagu dhaafi maayo, ee kaliya gidaarka albaabka ku yaala ayaa la furayaa. Dadkii oo hadalkeeda ku wada qancay ayaa fikradeeda ku wada raacay, iyagoona fureen albaabkii xilli ay galabi ku aadaneed. Intaasi kadibna waxay dadkii magaalada la yaabeen doqonnimadooda iyo sida gidaarkeena khafiifka ahi oo intaas oo qarni kaga hortaagnaa horumarkan. Haddii aynu ka fiirino dhanka waaqiciga nolosheena, waxaa jira dhowr waxyaabood oo kaa hortaagan inaad isbedel samayso iyo inaad horumar gaarto. Waxyaabaha isbedelka iyo horumarka kaa hortaaganna waxaa ugu horeeya gidaarka cabsida. Xaqiiqada marka laga hadlana gidaarka cabsida ma ahan mid adag, ee kaliya wuxuu u muuqdaa inuu yahay gidaar adag, balse xaqiiqada ayaa waxay tahay in gidaarka aanu adkeen. Gidaarka cabsida waxaa la sheegaa inuu ka samaysan yahay xumbo, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu ka samaysan yahay dhagxaan adag iyo biro adag. In ay sidaas kuula muuqatana waxaa sabab u ah ismoodsiinta aad ismoodsiinayso in haddii gidaarkaasi la jebiyo ee noloshaada isku bedelayso nolol fashil iyo rafaad ku dambeysa. Haddii aad jebiso gidaarka cabsida oo kaa hortaagan in aad isbedesho, waxaan ku hubaa inay noloshaada ku dambeynayso raynrayn. Marka hore dadka waa ay ku aflagaadeynayaan, dadka kuwa kuugu dhawina way ku liidayaan. Markii aad meelaha dhexe soo gaartana qaar ka mid ayaa kusoo garab istaagaya, markii aad fiinaalka soo gaartana dhammaantood garbahaaga ayay buuxinayaan. Maalin aynu nin oday sheekaysanayna ayaa wuxuu dhahay mataqaanaa qofka biniaadamka ahi marka kaliya uu qanaaco nafsiya dareemo. Anigana waxaan dhahay maya ma aqaana ii sheeg. Asna wuxuu yiri qofka marka kaliya uu qanaaco nafsiya dareemo waa marka uu tijaabiyo wax uu muddo aad u dheer ka cabsan jiray. Haddii aan hadalkaas kuu soo koobana wuxuu noqonayaa marka kaliya uu qofka qanaaco nafsiya dareemo waa marka uu tijaabiyo wax uu ka cabsado. Si aad u tijaabiso waxaad ka cabsanayso, marka hore waa inaad jebisaa gidaarka cabsida. Waxaa la dhahaa haddii aad dagaal ku guuldaraysato 3 mar oo isxigta, marka afraad haddii aadan ku guuleysan waxaa tahay meed, yacni qofka meedka ay wax dheexataa ma dhaantid. 3da mar ee cadowgaagu kaa guuleystay waxay u dhigantahay si uu ku siiyey fursad 3 qarni ah si aad uga guuleysato cadowgaasi 3da mar kaa guuleystay. Marka afraad waxaad ugu guuleysan kartaa si fudud adigoona hub culus iyo ciidan badan adeegsan. Waxaa jirta oraah dhahaysa fahamka su-aasha lagu weydiiyey waa jawaabta barkeed, taasoo loola jeedo haddii su-aasha lagu weydiiyey aad si fiican u fahanto waxaa kuu sahlanaanaysa in aad si fudud uga jawaabto su-aashaasi. daawada haddii aan kuu sheego waxa isbedelkii horumarka kaa hortaagan miska leexin karaysaa. Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, waan kuu sheegayaa waxa isbedelkii horumarka kaa hortaagan. Waxa isbedelkii horumarka kaa hortaagan waa gidaarka cabsida. waa gidaarka cabsida. Haddii aad jebiso gidaarkani waxaa kuu suurtagelaysa inaad si fudud u samayso horumar baaxad leh.